dayaxda nuurshe iyo Sharma Boy ayaa ka heesaya xalfadii markaasi. Sharma Boy iyo dayaxda nuurshe TikTok baa waxay aragtay in arrinkan uu ka gadmay gabadheedii iidiido laga haystaa bay dareentay in uu ka gadmaysa TikTok barnaamijkan uu TikTok ka gadmay afka isaga jimid haye warjira huba akaaro ima gabadhii TikTok gabar baa laga qaatay hada ku hayd waa luugan wax walba oo aanu sal baarno waxaan jecelnahay inaan ogaano oo aan meesha ay sal iyo raad ku leeyihiin aanu baarno waxaa jirtay gabar TikTok ka dhax ooyeysay hadii aad idin xasuusisay warkeedu waa kana ka dhax ooyeysay TikTok ku haysay cunug yar baa laga qaatay yaa cunug ka qaatay waxa iga qaatay nin aan isqabnama isfurnay kadibna cunugii asaga ay gala xibiyay asaga iyo hooyadiis kadibna maxaa dhacay waa ii soo celi waayeen TikTok baan door baday TikTok baan ka ooyaya wax walba waan ogaanay haye gabadhaas magaceedu waxa lagu magacaabaa Maido sida ay TikTok ku soo gashaa waxa ay soo gelisaa muuqaalo oo ay 24 saac ooyeyso oo ay leedahay gabadheedii yartayd baa laga qaatay xoog baa la iga haystaa wakaasa balse arrinkii waa la fashiliyay bal aan wada daawano qaabkii loo fashiliyay arrinkii gabadhaasi in iyadoo gardaran tahay in laga gardaray waxun hadda taageeri sida oo noo soo sheegay aad soo baxdo xabadan dabada ka galnay aadan cabdirashiid aadan riyo iyo Maida Cabdullaahi Cali waxay ahaayeen lamaane markii hore ku midoobay nolosha waxa ay muddo xiriir ay soo wadeen ugu dambeyn ay kamir dhaliyeen xiriirkii jacaylka ay u bedeleen in ay yagleelaan guri ay ku wada nastaan isla markaana ay gardaadiyaan ubad ay wada jiro dhaleen muddo kadib waxa soo xumaaday xiriirkii jacaylka ahaa waxaana halkaasi ku soo gabagaboobay wada jirkii iyo farxadii halkaasi ka jiray aadan cabdirashiid aadan riyo waxa uu maalmihii u dambeeyay la kulmayay dhaliisha iyo eeda ay hawada u soo marinayso Maida Cabdullaahi Cali oo ku sugan dalka Uganda gaar ahaan magaalada caasimadda ee Kampala waxaan idin sheegayaa muuqaalkan waxa laga yaabaa ninku waxa uu idin soo waday inaad isdhahaydeen ee muuqaalkan ma ku xaqiijirba muuqaalkan waxa uu noo sheegay iyo wax aan meelaha ka soo baarnay baanu helnay oo xog sir ah haye bal muuqaalkan oo aan wada daawan haddaba aadan ayaa waxaa lagu eedeeyay in ubadkii ay isku dhaleen labadooda ay uu ka qaatay isla markaana si qasab ah ooga qaatay haatan haysan haysan wax ubad ah ay waqti iyo farxad la qaadato haddaba aadan ayaa ka sheekeynaya eeda ay u jeedisay xaaskiisii hore Maida Cabdullaahi Cali gabadhan walaashay waxay u eedeysay in aan gabadha xoog uga qaatay waa been waxay u eedeysay in aan xumaan kasta sameeyo waa been waxay qarash iyo waqti iyo wax kasta ku bixisay in ay sumcad disho waa been gabadhan ay leedahay waa laga soo xoogay waa xooga laga soo qaaday waa been haddaba an marka sidaad u wada jeedaan ninkani waa ninkii gabadhan ay kala tageen ka ooyeysa TikTok waa ninkeedii ay kala tageen haye Maida Cabdullaahi Cali markii ay kala tageen maxay sameysay iyadu dayaxda nuurshe iyo Sharma Boy ayaa ka heesaya xalfadii markaasi. Sharma Boy iyo dayaxda nuurshe xalfadii markii gurigi la dumiyay kadib ay ka heesayaan labadoodii taraawixda hooyada weys nowad وحفلات ay ugu magac dartay furinkii iyo sidoo kale bye bye ay ugu tala gashay inay u sameeyso ama ay kula dabaaldegto asxaabteeda balse arrintan ayaa yaab iyo maqaag waxay ku noqotay dadkii iyada markaasi yaqiinay ayaa markaas ka fogeynaya eeda ay u soo jeedisay xaaskiisii hore Maida Cabdullaahi Cali oo ah in qasab ay uga qaatay ilmihii ay dhashay waxa uu sidoo kale aadan carabka ku dhuftay
in iyada ay go'aansatay heshiis ay ku wada galeenna uu ilmaha sidaasi uga qaatay. waxa uuna eedda inta badan dusha ka saaray hooyadeed oo uu gurigaasi ka dhismi waayey. waxa uu sidoo kale aadan tilmaamay in gurigaasi uu burburo ay qayb ka ahayd safar been oo dhanka dibadda ah oo loo sheegay gabadhaas inay ugu aadi doonto dalka dibaddiisa. ugu dambeyntiina ay haatan ay ku sugan tahay magaalada Kampala. dadka qaar ayaa arrintan u sababeeya markii ay baraha bulshada ka soo dhex muuqatay stress ama buuq iyada maskaxdeeda ku furmay. sidaan u wada jeednaba waxaa la yiri gabadhaani markii ay soo kala tageen iyada iyo xaajigeeda waxay samaysatay xalfadan markii ay samaysatay oo ay xalfadan dhigato Sharma Boy iyo hadii alla ku sameeyay ogol yahay fanaanka weyn ee dayaxdan oo shay u yeelatay oo waxaan ku iri habeenkaasi si showgi amal looga tumay xalfadani adigu maxaad ahayd xalfadan waxay dabacsaneed gabadhaani waxa aniga aan la hadlay qola xog ogaal ah oo markaasi iga dhacday arrinkan marka gabadhaani markii xalfadaasi dhigatay waxay xalfadan u dhiganaysay in ay tagto wadanka Uganda ee caasimadda Kampala kadibna waxay rabtay inay ka sii duusho ka gasho America iyo Yurub oo ay halkaasi waxaan ku iri ku raaxaysato wixii waa soo afmaray wixii waa soo awaaye markii horena maxaa dhacay barwaakana wiilkan ayaa ka sheekeynaya aanu jaleecno markii hore waxa ay isku sameeyeen iyada isaga iyo xaaskiisu waxay sheegtay hadii aan meel kala dego in gabadhaasi aysan weligeed aanan arkaynin halkaasna ay iga furanayso. waxa in badan aniga dadkayga waalidkayga xataa awowgay dad badan oo talkay inta u tageen la fariisteen u sheegeen inaan dhalinyaranahay shalay aan dhaqmeynay maantana u soo hoos galnay in waalidnimo hadii aan u fahmay inaan meesha ay igu qasbada aan ku noolaan karin in nolosheena u madax banaano hal sana meel gaar ah wada deganeen 4 bilood ay dhahday gabadha umasha ku jirto aan baxnaanina aan meel wada deganeen waan wada dhaqmi weynay gabadhii waxaan go'aansaday inaan guuro waxa la gaaray hadii aad guurtid gabadheedu ay fureen in la dhaho aniga mar badan adkaystay oo adkayso waayay maama waxa dhahay maalin kasta gabadhaadii ay ugu haysataa anna teeda farqo ku haysataa hadii gabadhaadii luul iyo dahab ku tahay anna teeda dhaman ay tahay. okay marka wiilkan waxa gabadhan looga furay oo ay hooyadeed uga furtay in ay duusho markaasna dabada la geeyo baa wiilkan looga furay. Kampala markay tagtay arrinkii waa soo afjiray waa isqurrumsaday wixii waa ay soo cawaayeen dabada arrinkii ay kaarkii waa gubtay markii kaarkii gubtay kadib waxay samaysay gabadhaani in waxay isku dayday markaasi ay gadaal u soo ceshato cunugii iyo waxaan ku iri markaasi ninkeedii oo ay gadaal markaasi u soo ceshato balse arrinkii haddana waa soo cawaayay. waxaa la yiri walaal adiga shalay ka dhaqaaqay sidee maatan ugu soo laabanaysaa sida aan ognahay Soomaalida dee waan iska naqaanaa dee waxaad shalay ka tagtay inaad ku soo laabato way adagta marka waxaa la yiri sidee ugu soo laabanaysaa maatay arrinkaani aad shalay ku dhaqaaqday oo foosho xuma adiga iyo hooyada aad shalay ku dhaqaaqdeen sidee maatay ugu soo laabatay in macnaha aad ku go'aansatay inaad maatay dib ugu soo laabato cunugaaga yarkaa waxaa la yiri naga tag baa la yiri waxaas ku siimayno cunugaagii. okay intaasi markay ay dhacday gabadhaani meelahay firfiriday way yaabtay waxay tii warniyo dabadna ma haydid cunug yarkaa dhashana ma haydid maxaad samaydaa TikTok baa waxay aragtay in arrinkan uu ka gadmay gabadheedii iidiido laga haystaa bay dareentay in uu ka gadmaysa TikTok barnaamijkan uu TikTok ka gadmay afkii isaga jibin tabcaan baanahay cunugii baa laga haystaa waa la haystaa alla cunugii tagdaal soo saarato waa kara cunugii waa liiga xoogay waa laga furo marooqsaday bas halka markay maraydo oo ay TikTok dadka ay yaabayeen oo aan xataa ka mid noqday oo aan barnaamijyo hore gabadhan aan ka soo gudbiyay baa jiray oo aan gabadhan aad ugu calxumanayay balse sida saxda waxaan helay xaqiiqda warka xaqiiqdiisa. okay markii gabadhan marka ay TikTok gabadhan kala kacday qof walba oo TikTok jooga gabadhan oo helinaya wuxuu leeyahay see gabadhan inkastoo gabar Soomaaliyeed tahay oo aan gabar Soomaaliyeed oo yeesa run iyo beenba aan ogolayn hadaan nahay wiilasha Soomaaliyeed ama qof walba oo Soomaali aan ka damqanayno
waxaa dhacday gabadha TikTok hadda inay ka kala kacday oo ay caan ka tahay soo fadhiisato oo ay tiraahdo maanta wax macma ay ka hadlaydo 100,000 ay laaf saaray bum والله الله وحان ربي إنا إرادو أباي أرين كاني سيدو كسابسين يعني أرين كان محاد قبل أن أنت يعني برامج كان هيلي كوربان الله وحان إري ولا سيدي وح أتشران با إنستغرام كان كلال qoraalkii way soo jawaab weysay marka si saxda macnaha waxa qorneed in aan xaqiiqadan helo gabadhaanna wax ay ku ooyeyso ay yihiin wax kama jiraan hadaba saaxiibayaal waxaan jeclahay in gabadhaan ooyinta iska dhaafto oo markaas ooydo ooyin si sax ah oo ka soo go'day qalbiga waa mahadsantihiin sida aad fiidiyoon daawateen one love next video